asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada muuqaalkan. waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dalka turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo doorashadii uu ku guuleystay yaa ku faa'iideeyay ku khasaaray, maxayse kaga dhignaan doontaa wadamada Yurub. sidoo kale gulihii waaweynaa isagoo ku talaabsaday tan iyo siyaasadda intuu isagu saaxadeedu soo koray ama soo fulay ayaan ka hadli doonaa. waxyaabo badan madaxdii dunida markaas u hambaleysay ayaan sidoo kale dul istaagi doonaa. hadalkii uu isagu jeediyey Kemal Kılıçdaroğlu ayaan sidoo kale eegi doonaa. khudbadii habeenkii xalayta la isugu jeediyey Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha cusub ee markale la doortay jamhuuriyadda dalka Turkiga ama madaxweynaha markale talada dalkaasi loo idmaday. haddii aad nagu cusub tahay youtube-keena naga daawanaysid fadlan subscribe saaro. haddii facebook-keenana aad markaad nagala socotay follow dhaho, siina share garee labaduba. haddii markaa aad isticmaalayso whatsapp, instagram, twitter iyo weliba marka adeegyada kale ee baraha bulshada la isticmaalo kusii share garee. shalayta hore waxay ahayd maalin go-aamin oo bulshada reer Turkiya isla markaana waxay yiraahdeen kelmadoodu waxaanay ku go-aamiyeen cid ay doonayaan in sanadaha soo aadan ay maamusho wadanka Turkiga. waxaanu aragnay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga inuu noqdo Rajab Tayyip Erdogan ama ninka 5 sano ee maamuli doona aqalka markaa madaxtooyada rasmiyan. ninka ayaa loo doortay isla markaana ninka ayaa ku talada ku fadhin doona oo maamuli doona markaasi. durba markii ay soo baxday waxaa la arkayay in farqi weynba markaa u dhaxeeyo, xitaa markaa saacadii ugu horeysay ee tirinta codka markay bilaabatay durba waa la iska garan karay. yani markaad fiirisid almost markay socotay 45 daqiiqo waa la ogaa cidda madaxweynaha noqonaysa, sababtoo ah farqiga aad buu markaasi u ballaarnaa. weliba xitaa masaaxada ama degdegta markaa tirintu aad bay markaasi looga garan karay ama u muuqatay. markaa 5 sano soo aadan isaga ayaa maamuli doona kadib markii uu helay 52 dhibic ilaa iyo 54 codood markaa lagu tilmaamay. markii 99% codadka la tiriyay qofkii ugu horeeyay u hambaliyay wuxuu ahaa amiirka dalka Qatar ninka markaa lagu magacaabo Sheikh Tamim bin Hamad, kaasoo ugu hambaliyanayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, kaasoo isoo ku yiri walaalkayga Rajab Tayyip Erdogan waan kugu hambaliyanayaa guushan, waxaan ku rajeynayaa tawfiiqdana deshid wanaaga markaa walaayadaada ama markaa heerka waqtigaaga labaad ama waayahaaga labaadba. waxaa bulshada Turkiga ay ka sugayaan inaad u xaqiijisid markaa oo ah markaa horumar baraare, isagoo tilmaamaya markaas cilaaqad wanaagsan in uu kala dhaxeeyo markaasi dalkiisa markaan horumar iyo waliba markaasi wanaag u rajeeyo dalkan. muddo yar kadib waxaad aragteen wakaalada wararka ee dalka Sacuudiga bayaan ay soo saartay lagu sheegay boqorka dalka Sacuudiga boqor Salman bin Abdulaziz iyo waliba dhaxal sugaha dalkaasi Amir Mohammed bin Salman ayaa iyaguna markaasi fariin munaasabada hambaliyada markaasi iyagu soo diray. sidoo kale Abdul Fattah al-Sisi madaxweynaha dalka Masar ayaa iyaguna u soo hambaliyay markaa sultaanka Oman Sultan Haytham bin Tariq ayaa markaa isaguna ugu hambaliyay. Abdulmajid Tibboune ayaa sidoo kale fariin ka soo diray Algeria oo madaxweynaha dalkaasi. sidoo kale rag badan oo caan ayaa markaas iyagu ahaa isla markaana fariimaha soo diray madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas iyo ra'iisul wasaarihiisa ayaa darkeyseen in fariimaha u soo direen. sidoo kale ninka Xamaas haysta ayaa darkeyseen qaybta siyaasadda Ismaaciil Haniya, kaasoo isagu ugu hambaliyay markaa shacabkan xadaaradooda ayuu ku ammaanay waxyaabo badan buuna ka hadlay. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Mohamed Sheikh al-Sudani ayaa sidoo kale u hambaliyay markaa guddiga culimada muslimiinta caalamka ayaa sidoo kale iyaguna fariinta hambaliyada aan ka marnayn. waxaa kamid ah Cabdilxamiid Dibeya, ninka xukuumadda wadankaasi Libiya ninka haysta ayaa sidoo kale u hambaliyay. waxaa Khalid Mushiri ayaa kamid ah markaasi raggii hambaliyada iyo fariimaha usoo diray. waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda dalkeena Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna dib u doorashada wadanka Turkiga madaxweynahoodu isaguna ugu hambaliyay, isla markaana ku yiri walaalkaygii Erdogan iyo saaxiibkaygiiyo hambalyo ayuu Twitter ka soo dhigay. weliba xitaa luqadda Turkiga ayaa markaa ku qornayd markaasi. sidoo kale Sheikh Mohammed bin Zayed ayaa sidoo kale u hambaliyay, isla markaana fariimo diray. wadamo badan oo caalamka islaamka ayaa iyaguna u hambaliyay haddii uu noqon lahaa madaxweynaha dalkaasi Iran ayaa sidoo kale kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan ninka markaa Shahbaz Sharif, Afghanistan Mullah Mohammed Hassan,
ninkii ahaa markaas Azerbaijan Ilham Aliyev, Uzbekistan Shawkat iyo waliba rag kale oo caan wadamada islaamka. wadamada Yurub markaad fiirisid Emmanuel Macron ka France, waxaad arkaysaa ra-iisul wasaaraha markaasi Major ama Hungary Viktor Orban, ayaad arkaysaa Vladimir Putin ka markaa Ruushka iyo waliba markaasi Ukraine Zelensky ayaan sidoo kale ka aamusin wasiirka arrimaha dibadda Malta. Georgia ninkii ahaa Serbia ninkii haysta Alexander Vučić ayaa sidoo kale kamid ah. Koonfur America sidoo kale ka tagin Venezuela Nicolas Maduro ayaa sidoo kale isaguna soo diray. waxay ahaayeen madax kale oo badan waan la soo koobi karin. markii intaa kadib waxaa soo hadlay ninkii ahaa Kemal Kılıçdaroğlu, wuxuu yiri aad baan anigu u murugeysanahay, waxaan hadda dareemayaa in wadanka Turkiga dhibaato weyn ay sugayso. macnaha wuxuu ula jeedaa ku guuleysiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. dabcan jabka adag ee mucaaradka kasoo gaaray ayuu isagu tilmaamay in markaas waxyaabo badan oo bulshada wuxuu yiri dhibka idin haysta ayaan anigu markaasi ka gubanaya, laakiin haddana wuxuu markaa tilmaamayay inaan laga markaasi labayn difaacidda dimuqraadiyadda. wuxuu ku sheegayo isla markaana shaki la-aan wuxuu yiri wax aan cadaalad ahayn ayaan aragnay, anagoo tafaasiil ka hadlayna isla markaana xuquuqdiina baan raadinaya. waxyaabo badan buu ka hadlayay. jabka ugu xun baana kasoo gaaray marka la eego dhinacyadii ku jabay. haddaanu ka hormarno mucaaradka, sababtoo marka la eego ma bedeli karaan, sababtoo markaad fiiriso aqlabiyadda baarlamaanka waxaa ku guuleystay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Erdogan uu hogaaminayo, talada dalkan isaga haya. sidaas daraadeed mucaaradku inay daawadaan gacmaha saartaan unbaa markaasi ay noqonaysa, sababtoo shacabku kalmadooda way yiraahdeen waxayna yiraahdeen annagu waxaanu nahay oo aanu la jirnaa ninka lagu magacaabo Recep Tayyip Erdogan. dabcan bay ayuuna ku celceliyey madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan maruu isagu hadlayay, isla markaana ka sheekeynaya wadanka Turkiga ninka sidoo uu la dagaalamay ama xataa hardankii ka dhaxeeyay. dabcan madaxweynuhu xalaytul waxyaabo badan buu ka hadlay. wuxuu sheegay in aan wadankan laga ogoleen waxa la yiraahdo dadka isku jinsiga ama xitaa markaasi mithliyiinta ragga wax ka raadiya dumar iyo waxyaabo lamid ah oo kale, taasoo markaas uu sheegay inaysan macquul ahayn ama xitaa wadankan mid uu aqbali karaysan shacab muxaafid muslimiin ay leeyihiin buu yiri. xitaa markuu khudbadiisii labaad ee Anqara uu ka jeediyay xalaytole aad buu markaas uga hadlay, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay isla markaana shacabku inay kelmadoodu yiraahdaan. aad buu isagu u rajeeyay inay markaa ku garab istaagi doonaan oo ay sii wadi doonaan. ninkan sidoo kale wuxuu isagu sheegay in wadankan horumar uu isagu horseedi doono. dabcan markaa warshada powerka nuclearka dhanka tamarta loo adeegsan doono ayaa la tilmaamaya, iyaguna in la ballaarin doono laba kale ayaa la tilmaamaya. halka isagu waxaas uu kasoo horjeed ninkii Kılıçdaroğlu ahaa. sidoo kale wuxuu tilmaamaya dhaqaale xumada iyo xaaladda adag. wuxuu sheegay in wax laga qaban doono isla markaa wax laga bedeli doono. markaad fiirisid waxyaabo badan baa markaa madaxweynuhu u ballan qaaday waqtiyada soo aad inay isbedeli doonaan. arrinta muhaajiriinta uu isagu sheegay iyaguna in xal loo heli doono oo uu tilmaamayo markaas inay noqon doonaan xal dhinacyadoo dhan wada roon. dabcan yaa ku faa'iideeyay ku guul daraystay mucaaradka kow way ku guul daraysteen sidaan sheegay. ajadooyinka waxay rabaan baarlamaanka xulafo ahaan waa looga badan yahay, taladiina markaasi xisbiga baa haysta markaasi. sidoo kale waxaa ku jabay wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka oo doonayay iyaguna inay markaasi bedelaan. shalaytol waa soo hambalyeynayeen ilaa xalaytole, laakiin waa dareemaysay muwaaqif iyo daciiftinimo inay ka muuqatay, isla markaana siday u hadlayeen bilowgii doorashada inaysan markaa ku jirin. Turkigana markaa waxay dooratay Erdogan. sidoo kale markaa fiirisid waxyaabaha laga calaamadeeyay iyo cidda ku jabtay waxaa kamid ah Mareykanka oo iyaguna markaas aan la dhacsanin nidaamkan, isla markaana isu dhoweyn marka waliba xitaa markaad fiiriso Biden iyo Erdogan, Trump iyo Erdogan ba isu dhawaaba markaas oo marna isku dhacay marna isu soo dhawaanaya markaas. marka danka waa ku guul daras, laakiin waxaa ku faa'iiday markaasi shacabka Turkiga. sidoo kale waxaa ku faa'iiday dhinacyada kale ku jabay waxaa kamid ah Kurdiyiinta. Kurdiyiintu waxay doorteen in ay markaa taageeraan Kemal Kılıçdaroğlu, xoogooda isugu geeyeen Izmir iyo waliba markaasi Diyarbakar iyo meelo badan oo wadankaasi ah. dhammaantood waxay dooneen markaas inay taageeraan Kılıçdaroğlu, laakiin haddana nasiib daro codadkaasi waxba maysan ka socon oo dalka Turkiga waxaa madaxweyne u noqonay xitaa Istanbul qaybo kamid ah, Ankara qaybo kamid ah oo dhalinyaradu waxay doonaysaa isbedel. laakiin isbedelkaasi shacabka muxaafidka ee muslimiinta kelmadoodu way yiraahdeen annagu waxaanu doonaynaa Erdogan. marka dadka ku jabay waxaa kamid ah markaasi xisbiga Kurdiyiinta oo kale aan ku sheegay. marka la eego muhaajiriinta iyo waliba dadka qaxootiga oo kale aad bay markaa u caawin doontaa. dadka ku faa'iiday waxaa kamid ah wadamada xulafada la ah ururada ikhwaanul muslimiinka
oo markaasi xamaas iyo weliba markaasi wadanka libiya xukuumadda ka jirta qatar oo kale oo ay wadan xaliif oo muhiim bay weynaysaa qatar haddii weyso wadankan ma sahlanayn qatar 2017 waxa ku dhici lahaa wax yar ma ahaan lahayn haddii usoo gurman lahayn marka la eego Erdogan iyo weliba markaasi ciidamadiisa dhibaato adag baa markaasi gaari lahayd wadamada gacanku ay u geysan lahaayeen oo la tirtiri lahaa laga yaabo markaasi wadamada xulafada ku faa'iiday ay doorashadan kamid ahayd markaasi markaan u noqono ninkan 29 sano oo isagu siyaasadda ku jiray waxa la yahay gulub uu ka gaaray laga soo bilaabo waagii marka dawladda hoose ee markaasi Falastiin afwan Istanbul iyo waliba gulihii markaasi uu ka gaaray markaasi waliba xitaa Erdogan wuxuu noqday hogaamiye aan la burburinin ba markaasi aan ku jabin ba dooro markaasi isagu inuu burburiyo mid kasta ka hor yimaado mooyaane markaad fiirisid dalashadiisii ninka iyo bilowgiisii hore xisbiga Salaam al-Wadaniya isagu uu ku biiray 72kii xisbiga ninka oo isagu maamulayay Najmuddin Arbakan oo isagu macalinkiisii marka laego markii ciidamada militariga dalka ay la wareegeen wadogeedeen waa dhibaato bay la kulmeen kadibna mar kale dib isugu soo noqdeen macalinkiisa Arbakan 83 waxaad aragteen markaasi in bilowgii markaasi isagu faraca Bayoglu isagu Istanbul madax u ka 84 sidoo kale ka tagin 87 doorashooyinka ka dhacay ilaa iyo labadii jeer isku dayay 19 laakiin ma helin 94 isagu guushiisa ugu horeeyay isagu keenay dabcan guulo weyn buu isagu gaaray ilaa iyo markaas 98 taasoo keentay markaasi in xabsiga la dhigo oo adogeedeen kelmadiisa caanka ahaa markaasi masaajiduna taktatuna وقبانا خوادنا استمركنا أولها مؤمنون جنودنا وهذا هو الجيش المقدس الذي يحرس ديننا مركو ده هي تاسو لتلوامي إن يحيد مركز وحيابه ديمها مركا دين الإسلام كاليسكوا أما دين دتك تركيا سكودري أو دتك ديمو ذو كحد وحيابه بدن بيشجعين حبسي لو داعية أفر بالحبس وسوقاتي لكن لما كوني كوجي مركز يسوي حزب جنا أساسي كده بيسجع عبد الله جول واحد باللاعبين ويا قروح بدن برلمان كبير لما كوني 12 ku guuleysteen kadibna waxaad aragteen taariikh weyn inay qoreen markaasi hogaaminta dalka Turkiga ilaa iyo markaasi xisbigii baarlamaanka ay ugu qabsadeen nidaamka markaasi 14 ay iyagu